gabo saaka halkan waxaan isugu nimi muxuu ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo muxuu ahaa ku marti qaaday kulankan ganacsatadii waaweyneed ee dalka oo qoorweyntoodii maanta ay halkan fadhido kulankan madaxweynaha waxa ku heliyay guddiga abaaraha oo shirkadahan iyo ganacsatadan dhamaantoodba guddiga ay qayb ka yihiin culimaawidiinkii guddiga abaaraha oo aynu u samaysanay inay xaaladan xaaladaha noocaasa qaranka ka samata bixiyaan gargaaraan dadkeena tabaalaysan kulankan waynu isku xog waraysanay ujeedadii aanu idinku yeernay madaxweynaha iyo xubno guddiga ka mid ah ka warramay ganacsataduna si wanaagsan ayaad runtii u hadasheen waxaynu abaaray dulucdii aynu u nimi waxaan jecelahay marka ugu horeysa inaan idinka mahadnaqno kulanka ajiibiddaana soo ajiibteen madaxweynaha soo ajiibteen maamuus iyo milgay isaga u tahay ummaddeennana waa qiimo weyn bay u tahay waxay ka markhaati kacaysaa waa garanayseen waxaa laydinku yeedhayay inay la jeclaya adduun tahay haddii dee aad bakhayla tihiin dee maydaan timaadeen qof walibana uu ku soo talagalay wuxuu halkan ka bixin doona ujeedaduna waxay ahayd aakhiradiisana waxbuu dhiganayay dadkiisana waxbuu tarayay waa idinka mahadnaqaynaa adduunka aad bixiseena ku yabahodeenna ilaahay waxaanu idinka baryaynaa inuu miisaanka xasanaadkiina ku biiriyo halka aad ka soo saarteenna uu ciwad kale idin geliyo ducada waxaan u daynayaa culimada waxaa halkan maanta ay kaga dhawaaqeen ganacsatadii lacag مليون iyo 35 kun ah deeq مليون iyo 35 kun ah 716 kun oo dollar 715 kun oo dollar muxuu ahaayay waa cash lacag cash weeye oo guddiga culimada gacantooda soo gelaysa insha Allah muxuu ahaa deeqaha iyo mucaawinooyinka waynu nidaaminaynaa khibradii laga kororsaday guddiga abaaruhu ka kororsadeen bay ahayd hay'ado samafal oo islaamiya oo dadaalaya iyo ururo samafal raashimo yaryar bay keenaan waxbay keenaan nin waliba meel buu la qabtaa waxaas oo dhan waa mamnuucayna dawlad ahaan guddiga abaaraha naga codsaday in la mideeyo mucaawanada waxaan u sheegaynaa dadkaas in wixii taakule ah meel un baynu wax wada wadnaa in guddiga abaaraha loo dhiibo sababtu tahay baahi baa la maamulaya iyo mudnaansho haddii waxaa laga yaabaa haddii haanta hadhuubla aynu mucaawanada ku maamulno inay meel keliya ku dhacdo dadka tabaalaysan waa dadkeennii deegaanadu waa deegaanadeennii waa loo xaqsoorayaa gobollada iyo dadka intaba marka waa in xarun si wanaagsan isugu xidhan laga maamulaa haddii kale waxaa dhacaysaa in meelo gaara ay waxba ku dhacaan cadaaladna ma aha saxna ma aha marka arrinta ayada waxaanu ku tanbiihinaynaa ururadaas dhammaantood inay guddiga ku wareejaan wixii ay hayaan muxuu ahaa ganacsatadu muxuu ahaa shirkaduhu adduunka ay bixiyeen wuxuu isugu jiraa raashin qayb raashina iyo qayb lacaga muxuu ahaa waxaan jecelahay inaynu xaadirino muxuu ahaa wixii ay shirkaduhu bixiyeen ayaan runtii aan jecelahay shirkadda dahabshiil group waxay bixisay 200 kun oo dollar ayay ku yaboohday shirkadda telesom waxay ku yaboohday 150 kun oo dollar oo laba qaybooda 80 kun oo dollar oo ay guddiga ku wareejinayso iyo 70 kun oo dollar oo ay yiraahdeen gobollada ayaanu kaga yaboohnay iyadana shirkadda Omar waxay ku yaboohday raashin dhan 4 kun oo qoys oo gaaraya 200 kun oo dollar shirkadda Som Cable waxay ku yaboohday 200 kun oo dollar oo cash ah xaaji baxsane wuxuu ku yaboohay 50 kun oo dollar shirkadda Al-Harbi waxay ku yaboohday 80 kun oo dollar oo isugu jira 30 kun oo dollar oo cash ah
iyo 50,000 oo ay yiraahdeen waa raashin iyo iyo 70,000 oo hore oo waxaanu soo qaatay xaasilkii maanta shirkadaha haamaha kaydka shidaalka berbera mas'uulka ka ah oo Berbera Oil Group BOG iyaguna waxay ku yabaaheen $150,000 oo dollar waxa weeye isu geyn guud waa $1,530,000 705 ay naqa tahay Suldaan Maxamuud Xaaji Xuseen isaguna golaha Suldaan inoo soo galay ahaana $1,000 buu ku yabaahay isagana alla khayr siiyo dhamaantiinba waxaan jecelahay inaan idin mahadnaqno amaanadaas iyo adduunkaas khasnad dawladeed la geyn maayo laguna dari maayo waxa maamulaya guddiga abaaraha culimadaas ayaa muxuu ahaayay haynaysa taanu dawlad ahaan bixinay iyo taabixiseen dhamaantiinba gacan aamina ay ku jiraan qof muxuu ahaayay waxa isleenahay runtii xisaab celiniyo horena way hayaan waxaan kaga baxayaa haddaynu iskaashano wax isku biirino wax weyn baynu qabsan karnaa malaayiinka dollar hay'adaha ajnabiga inoo keenaan ceelasha lagu qabo iskuulada lagu qodo ceela lagama soo dhuro muxuu ahaayay baanana lagama soo qaado wax ummado isku darsadeen oo hal dollar ayaa waxa laga keenaa marka waxaanu xoojinaynaa oo dhiirigelinaynaa ummaddu inay isku tashato in dadka walaalahooda tabaalaysan ay kaalmeeyaan waxaynu u baahnay inaynu xoojino halka dollar nus dollarka sadaqadu xishood ma leh waxa yaryar bay wax ku noqotaa waxa laga yaabaa iminka 2 milyan aynu ururinay ilaa shalayto dawlad iyo shacab iyo ganacsato in ka badan dadkeenu ay keeni karaan haddii ay isku soo daraan oo nidaamka zaadka iyo dahabka electronic money ay isticmaalaan waxa tajrubada ka marxaati kacay guddiga abaaraha ee culimada oo lacag badan ku ururiyay muxuu ahaa Sheekh Maxamed Ubisayn ku ururinay doorkii hore ku ururisay lacag aad u badan baa lagu ururiyay waxaan jecelahay Sheekh Maxamed iyo culimadu inay ducayso ganacsatada iyo muxuu ahaa iyo ummadaba dhamaanba